waxaa ilaa shalay dagaal u dhaxeeya qoomiyadda Axmaarada iyo Tigrayga uu ka socdaa xadka labada qoomiyadood kadib markii kooxda Tigraygu weerar xooggan ay ku soo qaaday Axmaarada. dagaalkaas oo qoomiyadda Axmaarada lagaga qabsaday magaalooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin Alamata, Raaya sida ay xaqiijiyeen ila wareedo si dhow ula socda. madaxweynaha maamulka Axmaarada ayaa shacabkiisa ugu baaqay inay difaacaan deegaanadooda iyo naftoodaba. dhinaca kale, kooxda TPLF oo dhowaan soo rogaal celisay kadib markii ciidamada militariga Itoobiya ka baxeen deegaanadooda ayaa soo bandhigtay deegaano ay ka qabsadeen qoomiyadda Axmaarada. labada qoomiyadood ayaa waxa ka dhaxeeya hirdan soo jireen oo ku salaysan maamulka sare ee dalka Itoobiya, taasoo qoomiyad waliba ay doonayso inay u maamusho si iyada dani ugu jirto.